toban sharci oo la yaab leh kuwaas oo waqooyiga Kuuriya kaliya ka jira. qodobka koowaad sharciga sida dadku timaha u jaranayaan. sanadkii 2013 hogaamiyaha wadankan Kim Jong-un waxa uu go'aansaday inuu soo saaro sharci xadidaya sida ama qaababka ay dadka waqooyiga Kuuriya timaha u jaranayaan. waxa uuna soo rogay sharci sheegaya in 28 qaab oo kaliya ay timaha u jaran karaan dadka wadankiisu. 10 qaab waxa gaar u leh ragga halka 18 qaab oo kalena ay dumarku leeyihiin. qaababka la mamnuucay waxa kamid ah in timaha la kala dheereeyo sida in qaybna la jaro qaybna la daayo. balse arrinta la yaab kale oo cadaalad darrada ah ayaa ah in isagu aanu ku dhaqmin sharcigan sababtoo ah qaabka uu isagu u jarto kuma jirto qaababka la ogol yahay. qodobka labaad dawladda ayaa go'aamisa dadka caasimadda ku noolaanaya. haddii aad ku nooshahay wadamada kale ee caalamka aadna damacdo inaad u guurto caasimadda wadanka aad ku nooshahay kaliya waxa aad u baahan tahay inaad alaabtaada xirxirato guri aad degtona hesho kadibna aad u guurto. balse arrintu sidaa uma fududa waqooyiga Kuuriya. haddii aad rabto inaad ku noolaato caasimadda wadankaasi ee Pyongyang waa inaad marka ugu horeysa ogolaansho ka heshaa dawladda. waxaana loo ogol yahay inay caasimadda ku noolaadaan dadka dawladda daacadda u ah iyo kuwa heerka noloshoodu sareyso. qofkii aan labadaas ka mid ahayna waa mid nasiib xun. qodobka saddexaad daawashada TV-gu waa mid ay maamusho dawladdu. haddii aad ku nooshahay waqooyiga Kuuriya inta aad TV-ga daarto iskama daawan kartid filimka aad rabto ama lama socon kartid wararka iyo waxyaabaha daafaha caalamka ka dhacaya. balse taa beddelkeeda waxa lagu ogol yahay 3 TV oo kaliya kuwaas oo ay si adag ula socoto dawladdu waxyaabaha laga sii deynayo. inta badanna TV-yadaasi waa kuwa lagu buunbuuniyo dawladda. qodobka afraad qofkii dembi gala marka laga yimaado in isaga la ciqaabo waxaa sidoo kale dembigiisa loo ciqaabaa dhammaan xubnaha qoyskiisa sida waalidiintiisa iyo walaaladiisa. haddii aad ka baxsato xabsi aad ku jirtay waxa isla markaaba la soo xirxirayaa dhammaan qoyskaaga iyo eheladaada. waxaana sharcigan loo soo dejiyay si aan dadka dembiga gala isugu dayin inay baxsadaan. sidoo kale xabsiyada waqooyiga Kuuriya waa kuwa aad loo ciqaabo dadka ku xiran sida inaan cunto la siin muddo aad u dheer. qodobka shanaad dalxiisayaashu ma laha wax xorriyad ah. haddii aad dalxiis ku tagto waqooyiga Kuuriya marka aad ka degto garoonka ayaa lagugu darayaa qof kula soconaya wax kasta oo aad samaynayso. kama bixi kartid hoteelka aad degan tahay adiga oo aanu kula socon qofkaasi. isaga ayaana ku tusaya meelaha aad booqanaysid. sidoo kale haddii aad saxafi tahay lama sheekaysan kartid dadka shacabka ah waxna kama duubi kartid. waxaana qofka dalxiisaha ah la tusaa inuu ka mid yahay dadka wadanka oo aanu samayn karin wixii uu doono. qodobka lixaad dumarka askarta ah ma aha kuwa loo naxo. dumarka ku jira ciidanka waxa khasab ah inay ka qayb qaataan tababaro aad u adag kuwaas oo soconaya saacado badan. waana inay noqdaan kuwa adag oo markasta isla jaan qaada. sidoo kale dhammaantood waa inay isku qaab timaha u jartaan sidoo kalena xirtaan direes gaagaaban oo isku mid ah. marka ay iskuulka joogaan waxa la baraa casharo nacayb ah sida in loo sheego inay la dagaalamayaan cadowgooda reer galbeedka. qodobka toddobaad dadka oo dhan looma ogola inay gawaari kaxaystaan. waqooyiga Kuuriya dadka kaliya ee loo ogol yahay inay gawaari yeeshaan waa saraakiisha ciidamada. waxaana lagu qiyaasaa in 1000 qof 1 ilaa 10 qof ay gawaari leeyihiin halka meelo ka mid ah caalamka uu qof kasta leeyahay gaari u gaar ah. qodobka 8aad ma wici kartid qof ku nool wadan kale. wicitaanka qof kasta oo ku nool meel ka baxsan wadanka waxa aad ku mutaysan doontaa in lagu dilo. sanadkii 2007 nin ayaa la toogtay kadib markii la qabtay isaga oo wacaya wadan kale. waxa uu xilligaas ku jiray garoon ciyaar laga daawanayay. markii la tooganayay ayay dadkii argagaxeen dusha ayayna iska mareen. waxaana sidaas ku dhintay 6 qof oo kale balse dawladdu waxa ay sheegtay inaysan mas'uuliyadda dhimashadooda qaadayn. qodobka 9aad looma ogola shacabka inay wadanka ka baxaan. haddii aad ku nooshahay waqooyiga Kuuriya waxa lagugu khasbayaa inaad ku noolaato wadanka gudihiisa cimrigaaga oo dhan. haddii aad isku daydo inaad baxsatona waxa aad waajihi doontaa ciqaab aad u adag ama mararka qaarkood in lagu dilo. qodobka 10aad fikradaha ka soo horjeeda dawladdu waa mamnuuc. qofkii la yimaada aragti ka soo horjeeda nidaamka dawladda waxa lagu xireeyaa xarumo dhaqan celin ah kuwaas oo fikirkiisa lagu soo bedelo laguna soo baro sida dawladda daacad loogu noqdo. intaas kadib qofkii diidana waxa la marsiyaa ciqaab aad u adag. intaas ayaan idinla wadaagnay saaxiibayaal maanta. fadlan muuqaalka like saar haddii aad ka heshay si uu dad badan u sii gaaro. mahadsanid.